سؤالات كان ويديني إنه واحد ورنا يسار نك لعقت لا يو نك فقيرها كيف بقى قبله في عن نك فقيرها وفي عن صوتنا ده وقت ولا يا مركب عوض ما صنت عليه ما صنت السلام عليكم وعليكم السلام كسر دوا جلنا كبون بوي وكل دوين إن مقعة عبد الرحمن أو إن سؤالات كان ويدينا واحد ورنا يسار إن عليكم السلام إن مقعة فيصل كسر دوا جلنا كبون بوي aad baan ugu dhawahay in caawa in waxaan dadka weydiinaynaa in question public markaa waxay ka oranaysaa sida tan in gabadh ayaad muddo wada sheekaysanayseen in badan kadib laba dalbaad kala joogteen in guur baad iyaad go'aansateen inaad isguursataan kadib waa isguursateen toddobaadkii ugu horreeyay aqalgalkii ayay gabadhi ku tidhi 3 ciyaala ayaan wataa gabadha maad ku gali lahayd maad furi lahayd sidaad ka yeeli lahayd bal noo sheeg oo marka horena ay sheegatay inay gashaanti tahay oo ay ku khiyaantay waa su'aal horta dhacda oo way ka dhacdaa dunida rag badanna way ku dhacday kulley way kala duwan yihiin ma taqaanaa fikrada raggu oo nini markaaba uu ka boodi lahaa oo uu ka carari lahaa laakiin aniga Faysal ahaan kagama tageen waayo awlaadu waa quratul ayn waa quruxda dunida weeyaan waan la korin lahaa gabadha awlaadaas wad maasatay waa naseerka bini'aadanimo waayo qofkii wax ka galay kharash maalba ka galay ninkii fikrad leh waxa gacantiisa gooshu gashin lahaa soo ma waayo wad maasatay السلام عليكم والله عليكم السلام ورحمة الله كسر دوا جلنا كبون بوي وندوي واد ما سنتي إن وحن عاودتك ويدينا سؤال يرو إسكا ميل دحا ما وقش عين لقوي ديولا ديار بنا إن واحد كورنا سؤال لقوي دينا سداتن إن قبل أياد مدودة شيء سنة إن اسمه أرك مركي هرا واحد كتير قبل إن وجوبان هاي كدب واسكورستين markaas guursateen ee arooska dhacay toddobaadkii dambe ayay ku sheegtay inay 3 caruura inan hore ay u leedahay way kala tageen marka gabadha maad ku gali lahayd maad furi lahayd maad sidaad yeeli lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan u soo dhaweynayaa janalka su'aashaad weydiisay jawaabteeda kulley qofkaas kolkii hore waxaan ku heshiinay in ay gabadh tahay anuguna wiil ah khiyaamay samaysay dabcan maadaama khiyaamo samaysay arrintaasi waan ka noqon lahaa sababtoo ah maadaama kolkii hore tiri ay khiyaamo samayso oo been sheegtay waxa laga filan karaana ee dambe mustaqbal waayo aanu doonayaa in mustaqbal qofkan wadaagno nolol wadaagno maadaama khiyaamayso ay tiri oo been sheegtay waxa dambe laga filan karaana been buu noqonayaa sidaa daraadeed imankan dhawahay sidaa daraadeed waan ka noqon lahaa kharash baa kaaga baxay maal baa kaaga baxay sideed markaa ma ilaahay baad ku dayn lahayd kulley waa maal waxba waa la helaa laakiin qofkan waxaan kula ballamay inaan nolol dhisano mustaqbal dheera adduun yar oo maalma kaa baxay waa la helaa laakiin mustaqbalkaagii nololeed oo in muddo dheer ahaa ma helaysid sidaa daraadeed kharashka waxba maaha iyo wax iga gala waxba maaha laakiin mustaqbalkayga iyo aayahayga aan eegaya waan ka noqon lahaa waad maasan tahay boqolkiiba السلام عليكم والله عليكم السلام كسر دوا جلنا كبون بوي waan ku dhawahay janalka bilaabista in magaca walaal maxamed jaawi in maxamedow caaw su'aalad kan weydiinina marka in gabadh ayaad wada sheekaysanayseen in muddo ah ismaad arag laba dalbaad ku kala nooleedeen inaad isguursataan baad yaad go'aansateen waa isguursateen toddobaadkii ugu horreeyay ee qalgalkiinii marka arooska dhacay kadib bacdi ayay gabadhii ku sheegtay in afar ciyaal inan hore aan kala tagnay ayaan wataabay ku tiri marka gabadha maad ku gali lahayd maad furi lahayd maad sideed oran lahayd tiyada tahay guur maayo waa nin reer la degay weeyaan ama marka xoolina waa maasatay waad maasataad ka oran lahayd waayo waad maasatahay adiga laftigaagu